madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa maanta waxay dib ugu soo laabteen magaalada Cadaado. garoonka diyaaradaha ayaa waxa ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Buqaari, wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug. odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaado ayaa sidoo kale ka qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug. howlka nasiinada garoonka diyaaradaha oo loo soo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu kula kulmay odayaasha dhaqanka ee magaalada Cadaado. madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa sheegay in baarlamaanka Galmudug iyo qaybo ka mid ah maamulka Galmudug ay ku shaqeyn doonaan magaalada Cadaado. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in magaalada Cadaado oo ah magaaladii lagu aasay Galmudug ay ku shaqeyn doonaan xildhibaanada iyo qaybo ka mid ah maamulka Galmudug. meesha lagu aasay Galmudug lagu caasiyo karo waa qalad weyn lagu caasiyo wixii dadaalka ka ahayna Galmudug waa qotomayso. waxaan raadinaynaa qof walba iyo meel walba iyo deegaan walba oo Galmudug ka tirsan inay qayb ka ahaadaan dib u dhiska ama dhismaha dowladda ee Galmudug inay qayb ka ahaadaan. inta laga maqan inta wax tirsanaysa mas'uuliyaddeeda annaga askari inaan soo celino oo aan qancino oo aan la hadalno. la hadalkaasna inuu keeno isfaham iyo caqli wanaagsan iyo xikmad inuu keeno. xikmaddii waxay noqotay markii aan dhinac walba ka fiirinay in qayb ka mid ah dowladdu halkan ku shaqayso oo baarlamaanka ah oo aan naga guurin meeshaan baarlamaanka intuu ku shaqeynayaa go-aanka qaadayso saas maaha waa saas weyn. dowladda qayb ka mid ah in halkan ka shaqaysayda naftigeeda baarlamaan keligiisna ahaan qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqayso insha Allah. kaliya ma aha degmooyinka loo qaybino hadduu ay yiraahdo oo ay noqoto wax aan wada leenahay hadda ay u tahay haddaan ku kala tagno hadda waxay la tahay dowlad goboleedyada kale waa ka daawanaysaa. dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug ayaa si wada jira waxay u dhagax dhigeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado kaas oo ka mid noqon doona mashaariic dowladda Soomaaliya ay ka hirgelinayso magaalada Cadaado. wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxay u ambabaxeen magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Mubaarak Maxamuud Sheekh Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.